Assalaamu calaykum caruurey. Sheeko cusub oo xiiso badan ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa sheekadii diidiinka iyo bakaylaha. Sir ayayna ku bilaabanaysaa. Waa hore ayaa meel kayn ah oo aad u cagaaran ayaa waxaa ku noolaa xayawaano badan. Xayawaanahaasoo ku noolaan jiray meel aad u fiican oo qurux badan. Sidoo kale meesha waxaa ku noolaa bakayl aad u faan badnaa. Bakaylahan ayaa mar walba wuxuu ku faani jiray siduu u orod badan yahay. Xayawaanada oo kale dhan ayuu u faani jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa bakaylaha wuxuu la kulmay diidiin. Diidiinkaas oo lagu yaqaanay xikmad iyo dulqaad badan. Waxa uuna bilaabay inuu faankiisa bilaabo. Haye, iska waran xaaji caajisow. Warnihii hoosteed adduunyo ku qabsataa adoo sidan u gaabiya. Sidaas ayuu ku qoslay bakaylihii. Diidiinkii oo aan niyad jabin ayaa ku jawaabay. Orodka wax walba ma aha. Waxaa laga yaabaa inaan gaabis ahaado. Laakiin aniga waxaa iga go'an mar walbo inaan adduunkayga si tartiib ah ku qabsado anoon degdegaynin. Ka waran maanta haddaan kula tartamo si aan u caddeeyo inaan ahay diidiin aan la dhayalsan karin. Bakaylihii ayaa mashxaradeen iyo qosol ku dhiftay. Si aan caadi ahayn ayuu u qoslay. Laakiin aakhirkii wuxuu u oggolaaday tartanka. Xayawaanadii kale ee kaynta ku jira ayaa waxay iskugu soo baxeen inay daawadaan. Dabaco xikmad badan oo cadaalad lagu yaqaanay ayaa loo doortay inay garsoore ka noqoto tartanka. Tartankii markuu bilaabay bakaylihii ayaa si dhaqsi ah u orday, kana tagay diidiinkii oo aad uga fogaaday. Bakaylihii isagoo ku kalsoon guushiisa oo yasaaya diidiinka ayaa wuxuu go'aansaday inuu geed hoostiisa ku nasto. Wax yar kadibna wuu seexday. Dhanka kale, diidiinkii wuxuu si tartiib ah u soo socday. Si toos ah oo howlkarnimo ay ku jirto, si toos ah ayuuna ugu dhaqaaqay goobtii tartanka uu ku ekaa. Diidiinkii oo neeftuuraya ayaa wuxuu la kulmay dabagaale aad u yar oo xiisaynayay tartankaas. Markaas ayaa wuxuu go'aansaday inuu ku soo biiro tartanka xiisaha leh. Dabagaalihii ayaa bilaabay inuu la sheekaysto diidiinkii, isagoo sidoo kale dhiirigelinaya. Soco, orod diidiinow, howl fiican ayaad qabanaysaa. Wax fiican ayaad qabanaysaa. Sii wad howshaada. Diidiinka ayaa aad ugu farxay dhiirigelintaas uu ka helay dabagaalaha. Wuxuuna helay tamar cusub. Wuxuuna u dulqaaday tartankii dhibka badnaa. Si wada jir ah ayayna u dhaafeen bakaylihii hurdaayay. Markii ay ku soo dhawaadeen khadkii gabagabada ahaa, ayaa bakaylihii soo buraarugay. Waxa uuna arkay diidiinkii iyo dabagaalihii oo ku dhow xariiqdii dhammaadka tartanka. Bakaylihii ayaa qayliyey. Haye, maya wallaahi tan ma dhici karto. Ma dhici karto maanta in diidiin xun iga badiyo. Maanta oo ceeb iga raacdo. Sidee ayaan meeshan kaynta ugu dhex noolaan doonaa maanta haddii diidiin xun iga badiyo? Sharaftaydii oo dhan ay halkaas ku baaba'aysaa. Diidiin caajisa hadduu iga badiyo waa ii dhammaatay maanta. Markaas ayaa bakaylihii orod ku dhuftay oo awooddiisa oo dhan isticmaalay. Laakiin waa daahay. Diidiinkii iyo dabagaalihii ayaa si wada jir ah hortiis waxay ugu tallaabeen oo ku guulaysteen tartankii, iyagoo ay aad ugu faraxsan yihiin xayawaanadii duurka joogay oo dhan. Bakaylihii asagoo neeftuuraya oo yaaban ayaa maalintaas bartay cashir qiimo leh. Wuxuu bartay inay muhiim tahay inaan dadka la dhayalsan. Wuxuu sidoo kale bartay inaysan qiimo lahayn faanka, isla weynida, dadka kale oo la yaso. Waxaas oo dhammaan ah waxyaalo liita. Waxa dadka lagu qiimeeyana inay tahay deganaanta, howlkarnimada, dulqaadka iyo dhabar adayga. Iyo sidoo kale saaxiibtinimada wanaagsan. Iyo dadka oo si degan oo qiimo leh oo sharaf ku jirto loola dhaqmo. Sifooyinkaas ayaa lagu hormaraa oo dadka kalena kugu qadarinayaan. In dadka loo faano, dadka la yaso, in dadka la dhayalsado. Waxaas oo dhan waa waxyaalo aad u liita oo aysan ahayn in lagu dhaqmo. Caruurey, cashirka sheekadan aan ka baran ayaa waxay tahay muhiimadda ay leedahay in si fiican oo akhlaaq ay ku jirta loo dhaqmo. In la iska daayo dadka in la liido oo sidoo kalena howlkarnimada muhiimadda ay leedahay ay sidoo kale noo cadaynaysaa sheekadan. Caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. Ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.